magaalada halkii line ee nimanka ka dacwoonayaan waa wadada marka al-mukarrama waana wadada ayaga ee jidgooyada ummadda ay ku sameeyeen barnaamijkan dawladda ay aad ugu fudud waa barnaamij lagu fududaan isla xukuumadda Soomaaliya ayaa khamiistii soo saartay qaraar ka kooban 5 qodob qaraarka ayaana si gaar ah u taabanayay wadayaasha mooto bajaajka iyo ganacsatada dalka keenta bajaajka qodobka koowaad wuxuu dhaqan galayaa maanta oo ah 1 bisha Abriil gabi ahaanba waxaa la joojiyay maanta wixii ka bilowda bajaajka ka soo deganaysay dalka nuuca laba lugaaleyda iyo mootada gaariga ah hadalheen ayaa ka laltay qaraarka ay soo saartay xukuumadda waxayna sababta ku sheegeen in qorshaha lagu leeyahay uu yahay in amniga Muqdisho lagu sugo iyo in lagu yareeyo kiisaska dilka bajaajleyda ee maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta mooto bajaajta ayaan weydiinay falcelintooda go'aankii ka soo baxay xukuumadda horta magaalada Muqdisho wadanka ciidamo horta kala duwan loo sameeyay nabadsuguda data booliis data maxaa la yiraahdaa isaga ciidan bada data ciidan cir waxa horta isweydiin mudan ciidanka taraafikada wadanka maxay ka qabtaa dekada irideeda iyo maxaa la yiraahdaa Colo Tower si kala daa u sheego wadada dabka iyo Cabdiqaasin iyo maxaa la yiraahdaa ishaageen Zobe saddexdaas meel bis ay ka howlgalaan ciidanka taraafikada shaqadana waa ciidan taraafik magaalada halkii line ee nimanka ka dacwoonayaan waa wadada marka al-mukarrama waana wadada ayaga ee jidgooyada ummadda ay ku sameeyeen soddonkan mashquul ma noqdo maxaa la yiraahdaa warshadahan mashquul ma noqdo dariiqan awalan ayaga jidid ka xiray intii yaraadna iyagii ma taqaan ay ku filnaan lahayd hadda waxay u dagaalamayaan nod inay tahay shacabka Soomaaliyeed nafsadoodii ee meel u maraan la ayeen nimankan midda kale sheekadan ah AEB yaa loo kala sameeyna AEB hadii loo kala sameeyo horta waxay ku daysanayaan Koonfur Galbeed State ha ku daysadaan muxmaano Koonfur Galbeed State waxay sameeydaa canshuur waxay qaadaa $7 bar because qof waxa la maalin dhaaf ha shaqeeyo maalin dhaaf ibn hadii uu shaqeeyo waxay noqonaysaa 30 maalmood 15 bari ka bacdi 15 bari kamid inuu shaqeyn kariyo marka in 30 maalmood ay ku filnaan la adahay qoyskiisii wuxuu ku masruufo su'aasha weydiinta mudana waxay tahay 15 bari ma ku filnaan kartaa okay wadooyinka Muqdisho wadooyinka ayaga ay xireen ee jidgooyinka ummadda ugu sameeyeen ee maxay ay toolay sheeg taraafik la'aanta dhigan anaga miyaa sheegayno 4 saac oo askari taraafikada wadada ka tagaa xilliga qaadku soo dhacayo kii jaamacad ka yimaada kii waxbarasho ka yimaada kii isbitaal ka laabta jaamic wadada noqonay waa xilliga ugu badan ee militariga inta soo baxaan wadooyinka xoog ay ku furtaan ee dadka masaakiinta laayaan waxa isweydiin mudan marka in la weydiiyo wasaaradda gaadiidka ragga u shaqeeya macashuur bixin kaliya u shaqeeyaan oo tugtugay uga soo aruuriyaan way kaalinteed inay wadooyinka furaan kilometer 4 iyo wadada maxaa la yiraahdaa Talax isgoyska Talax iyo Zobe labadaas meel bis wadanka taraafik ka jooga maalin walba cutub cusub loo soo xiraa maxaa la yiraahdaa ishaageen taraafikada ay soo saartaan xagee ka shaqeeyaan oo su'aal isweydiin mudan waa soo dhaweynaa amni wixii amniga anagu mataaliyana waa shaqaysan amni inaan ku shaqaysanaa rabnaa ma diidanin laakiin waxa la rabaa sidee A iyo B looga dhigayaa sidee se loola falgalayaa barnaamijkan ayadaa la rabaa ayadaa sheegtay inay keentaa la rabaa nidaam oo sax oo aan u falgalno waa rabnaa anaga A iyo B in laga dhigo laakiin waxay qaadanaysaa waqti dheer anigu cashuur bixiyaan ahay $15 lacaga laga qaadaa bil kasta say ku noqonaysaa inaan maalinna shaqeeyo maalinna aan joogo oo 15 aan bixiyo waxay noqonaysaa in cashuurta laga wada hadlo in la isku yimaado mootaalida ay dawladdu la fariisato oo ay tiraado arrinkaan dabacnay laakiin waxarta qoorta qabo qorqood baalkii sheeg baalkii qorqood sagaar bi kuma cabto waxarta qoolka qabo horena waa ka gelinaya suurtagal ma waxa la rabaa barnaamijkan in laga doodo guddi mootaale loo sameeyo mootaaleedu baalkii anaga dawladda aan wada fariisano sida ugu macquulsan amniga sida loo baalkii sheeg looga hadlayo sida loo yeelayo A iyo B loogu sameeyo laakiin ma ahan barnaamijkan dawladda ay aad ugu fudud waa barnaamij lagu fududaan isla waxa waan aniga fikirkaas soo dhow ay go'aanka xukuumaddu soo saartay kuma raacsanin maadaama dadka waa dad wada xoogsata bajaadley waa wada xoogsato nin $10 oo ku wada maantay wuxuu wadaa alyoon burina alyoonkaas haduu maanta haduu jiifto alyoonkii wax soo burina ma leh waxa waan marka go'aankaas dawladdu inay ka laabato xal kale loo keeno bajaadleyda wadooyinka xiran la furo oo jidcadooyinkii la furo aniga go'aankaas soo jeedina laakiin hal la xiro oo A iyo B laga dhiga go'aankaas inuu soo ma jeedinayo dawladda waxa ka codsaneynaa oo 100% ka codsaneynaa mootooyin in la yareeyo ama mootooyin A B loo kala bixiyo
أمني كم سجمايو أمني وحوك سجمايا يعني أسكرتي إنه ستوسا معناها وحي أوباران ودوين كيفران ماشان ومجاله واي ماهن قبل ماهن ومجاله مجالدن سيدنا ويدد بديين ويكلا سعطا درتان intaan mootooyinkan waxaan oo dhan waa rag oo soo baxay soo shaqo tagay saakay risqigooda soo doontay in yani sidooda ay u shaqeystaan nidaamka dirtaan ay ku shaqeysanayaan ay ku shaqeystaan dawladda si kale ay ku xalin karaan yani ay ku xaliyaan hadda jaa waxa waay wadooyinka inta badan wadooyin badan oo luuqyada la marayo meelay la isku leefayo ma jiraan wax jaamka sababayo wax dilka sababayo waxa keenayo waxa waay isgoosida in la isku yimaado waxaa xirxiran inta badan waxaa xirxiran luuqyada iyo meelihii la marayo mootooyinka isku dhaafayeen meelahaas oo dhan xiran marka dawladdu waxaan ku codsanaynaa nidaamkan ay soo saareen maahan nidaamka fiican oo ka wanaagsan inay soo saaraan marka haddii mootooyinka dawladda ay joojisay ilaa iyo amar dambe ma dhihin dawladda waxaan joojinay gebi ahaan mootooyinka bajaajta in la soo dejiyo laakiin waxay tiri ilaa iyo amar dambe marka waxaan rajaynayaa in mootooyinka dawladda sida ay ka dhawaajisay A iyo B ay u kala saari doonto taa oo ah hal oo maalin 24 saac ay shaqaysan doonto ee biidan ay shaqaysan doonto 24 saac ay kaleento isku markaas isku qaabilayaan magaalada Muqdisho oo inay tahay caasimada dalka waxa isku waafaqi karaan hadda irtaanba cashuurta mootooyinka mooto walba cashuurteeda way bixisaa waxayna ku bixisaa qaab application mid yaa bixisay mid aan bixinba dawladdu way kala garan kartaa iyadaana laga rabaa halkaas inay keento wallahi waxa suuragal ah waa taa sababta magaalada Muqdisho waa baacad weyn tahay ninka ka imaanayo dhanka suuqa xoolaha iyo ninka kan garsbaanay ka imaanayo oo uga shisheeso iyo kan kaaraha ka imaanayo oo ilama ahan inuu intaas la isku celin karo kulli waar arki doona meesha ku dambeynto Bashir Cabdi Somali Cable TV magaalada Muqdisho bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeegga mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududaynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeegga e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo